بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا وعن ونكسن قياري كسر دوادا وركي وجودن بيجي اللحرة كيس كان نكي حاس كيس قارجي سيد علي معلن داود أو حق السرقة هذا أي كسر بحيان وركي وجودن بيجي أيام كوسو جود بنيا إيو دات كارير مقدشو جرهان كول أهل كأه أياد البضي إن حكم دق أهل جهد سيد علي معلن داود walaalkiis oo afka furtay isla markaana u hiiliyay Lul Cabdicasiis ayaan halkan kuugu baahinaya isla markaana aad ku daawad doontaan hadii eeba uu raali ka noqdo magaalada Muqdisho dibadbax xoogan ayaa maanta ka dhacay waxaana ku soo gudbinayaa xog arinka la xiriirta war cusubna waxa uu ka soo kordhay dilka Sheekh Xasan Diiriye iyo Saciid Haliil soo dhawaada qodobadaas ayaan idin baahi doonaa hadii aad nagu cusub tahay nagu soo bir ka mid noqon daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran leegtu waa inoo muhiim mar walba ee hilmaamin aynu ku bilownay waxa loo madlansan yahay dhawaan in la qaado kiiska dacwadda ah ee Said Cali Macalin Daawud gabagabada ayaa la filayaa in laga soo saaro xukun lagu rido Said Cali oo ku eedeysan in uu nafta dhaafiyay isla markaana uu qaarijiyay marwadii uu qabay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa maalmaha fooda ugu soo haya waxa laga filayaa inuu soo gabagabeeyo kiiska dacwadda ah ee loo haysto Said Cali Macalin Daawud kaas oo muddo ku dhow bil ku jira gacanta laamaha amniga dowladda federaalka ee Soomaaliya kadib markii laga soo qabtay isaga oo baxsada deegaanada maamulka Galmudug kaas oo waqtiga doonayay in uu si ambabaxo haddaba walaalka Said Cali Macalin Daawud oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu dalbaday in si degdeg ah xukunka loogu dhawaaqo isla markaana wiilka la dhashay uu mudan karayo xukun dil ah maadaama uu naf dhan gooyay ehelka Said Cali Macalin Daawud ayaa horay loogu eedeynayay in aysan markaasi diyaar u ahayn in cadaaladda la marsiyo wiilkooda iyaga oo garab iyo gaashaan u noqonayay oo difaac u ahaa waxayna odayaasha beesha Saleeman oo dhowr jeer jaraa'id oo kala duwan qabtay ay sheegeen in markaasi aysan suuragal ahayn in waanwaanta iyo wada xaajoodkii ay galeen looga baxo taasna waxay ku tilmaameen mid si aad kaga fog dhaqanka damiirka iyo sidoo kale wada dhalashada oo ay sheegeen in wax badan ay kala dhaxayaan beesha ay ka soo jeedo Allah uu raxmadee marxuumad Lul Cabdicasiis Lul Cabdicasiis ayaa waxa ay ahayd gabar haysatay caruur agoon ah waxaana ay ka shaqeynaysay gegada diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan Aadan Cadde magaalada Muqdisho haddaba ehelka Said Cali waxa ay warbaahinta u sheegeen sida tan maxkamadda gobolka Banaadir waa dadka dhan ishay ku hayaan dadka dhan way fiirihayaan go'aanka oo si baalki eedeysan Said Cali ay ka gaari doonto dadka dhan way fiiriyaan marka labada dhinac hadda inay istijiyaan ay ku kalsoodaan go'aanka maxkamadda gobolka Banaadir go'aanka wax walba noqon karaa go'aankaas dil uu noqon karaa wax walba noqon karaa go'aankaas sababtoo ah maxkamadda ayada go'aan soo saari karto ayada baariso ayada hawshan ku guda jirto ayada juhdi ku bixihayso marka in laga wada sugo maxkamadda gobolka Banaadir go'aankaas ay gaarayso ayaan rajaynaa dadka Soomaaliyeed indhaha ku wada hayaan gabadhaasna inay cadaalad hesho ayaan rajaynaa insha Allah waa gabar walaashayn ah oo maanta dhimatay ilaahay ha u naxariisto jannatul firdaws Allah ka waraabiyo marka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ayaa dhaha teeda kale waa halka taxsiin ku daraya nin kale to mootoolo ah oo la dilay shalay Allah u naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ninkaas gacanka xaq darnaa dishay in kuwii dilayna ayagana cadaalad la hor keeno Soomaalidu waxa deeqdo cadaalad deeqdo nin walba haduu nin dilo markasta la qabto oo xukun lagu filiyo nin dilo lama arki lahayn dadka dhan cadaalad deeqdo marka cadaaladda say u imaato nin walba gacan ku dhigla ah in la waafajiyo sharciga islaamka marka xawa dadkana waa kala nabad gali lahaayeen nin dilana lama arki lahayn marka intaas ayaa dhaha Soomaaliyeedna ha u duceeyaan gabadhaas walaashaan ah intii Soomaaliya xaq darro lagu dilay inay cadaalad wada helaan inta cadaalad aan helin inay cadaalad ay helaan u duceeyna cadaaladda xawaayo waa muhiim dadka waxa kala dhici karo oo kala cili karo oo dadka Soomaaliyeed
tiir u noqon karo waa cadaaladda marka nin walba Soomaaliyeed oo cadaalad fadhiyo ama maxkamad fadhiyo ama meel fadhiyo inuu wuxuu uu hayo suulida uu hayo dadka Ilaahay uu ugu baqo oo kiis warwareejinin kiiska cad oo dadka walaal waa nawahay magacaygu waa Idriis Axmed Ismaaciil walaal waa nawahay kulay maxkamadda gobolka Banaadir waxaan ka rajaynaynaa cadaalad ugu jirta inay sameyn doonto ma rajaynaynaa oo ka sugaynaa insha Allah taala cadaalad waxay noqon kartaa sida xaqiiqada ee dadku ku qanacsan yahay waxa meesha ku jira sida saxda in uu macnaha qofka dhibanaha iyo qofka macnaha dhibgeystaha labadaba in cadaalad sida aad maqlaysaanba beesha Saleebaan oo idin looma tiri karo inay difaac u tahay Said Cali kuwaani intooda badan waxay u dhasheen beesha Saleebaan waxayna dalbanayaan in cadaaladda uu wajaho Said Cali Macalin Daawud daawade dhanka kale hadii aynu eegno dibadbaxayaal careysan ayaa Muqdisho lagu rasaasiyay warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya shaqaaqo saabtay dhimashada iyo dhaawac soo gaaray dad rayid ah taas oo ka dhacday isgooska Siinay ee Muqdisho shaqaaqada ayaa timid kadib markii ciidamada ka tirsan kuwa dawladdu ay rasaasayeen dadweyne careysan oo dibadbax ka dhigayay halkaasi waxaana ka dhashay khasaare dibadbaxayaasha oo ay dhigayeen dadka deegaanka ayaa waxaa looga cabanayay maamulka degmada Warta Nabadda sida ay sheegeen qaar kamid ah dadkii ka qayb galay waxaa naga maqan xuquuq aan u doonaynay balse markii aan banaanbax dhignay Seynab Xabsi ayaa xabadan nool noogu jawaabtay iyo taliyaha sidoo kale hooyo kale oo la hadashay warbaahinta ayaa sheegtay in ay doonayaan kursi ay lahaayeen ka beel ahaan kaas oo ay sheegtay in la boobay xuquuqdeena ayaan u baahanahay kursigeena ayaan rabnaa waxaana iska leh markaasi xuquuqda kursigaas beesha Macalin Daawud ayay tiri rasaasta ay furan ciidamada ayaa waxaa lagu eedeeyay ciidamada ka tirsan kuwa saldhigga booliska degmada Warta Nabadda sida ay warbaahintu u sheegeen dibadbaxayaashu ugu yaraan hal wiil oo dhalinyaro ahaa ayaa ku dhintay rasaasta halka ay ku dhaawacmeen haween kale taas oo sii kordhisay xiisadda magaalada Muqdisho dilal noocan ayaa dhowr jeer ka dhacay ilaa ay haddana ma jirto cid si rasmi ah loogu soo qabtay magaalada Dhuusamareeb kol hore wadaada ayaa lagu dilay ehelada marxuum Sheekh Xasan Diirshe ayaa shir jaad ku qabtay magaalada Muqdisho waxa ay sheegeen in 5 bilood in ka badan uu aasan yahay dilka loo geystay labada marxuum ayaa salka ku hayay aana qabiil waxaana si weyn uga xumaaday reer Dhuusamareeb maadaama lagu dhex dilay caasimadda Galmudug Xasan Diirshe Cadde oo dhashay marxuumka ayaa sheegay in aan wali la soo qaban eedeysanaha isagoo arinta ku tilmaamay xadgudub weyn maadaama laga gaabiyay sidoo kale wuxuu intaa ku daray in cabashadooda ay wax ka qaban weysay Galmudug haatan ay u soo gudbinayaan dowladda dhexe ee federaalka ah daawade halkan waa bartaan ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka hadii aad ugu cusubtahay nagu soo biir amaana Allah